waxaan meeshaan isugu nimid dhibaatada dhallinyaradeenna haysatay inaan ka hadalno intaasaan isugu nimid waxaad og tihiin dhallinyarada marka koobaad bini aadamka noloshiisa qaybta ugu muhiimsan waa dhallinyaranimada mujtamaca qaybta ugu muhiimsanna waa dhallinyarada waxa mujtamaca hormariya oo sharafta u keena oo lagu xisaabtamo oo aabbayaasha iyo hooyooyinka berri ee mustaqbalka iyo hogaamiyayaasha ummadda ee mustaqbalka waa dhallinyarada inaan dhallinyaradeenii aan korino oo hooyada iyo aabbaha ay ku dadaalaan oo tabardarradii dhallinyaranimada ay ka soo saaraan oo markuu ugu xoogga badnaa oo ugu quruxda badnaa uu jidka ku dhinto cadaalad ma aha inaan maalin walba aan dhegaysano hooyo ooyeysa oo canugii ay u soo jeeday oo ay ku rafaaday oo ay soo korisay oo ay soo gaarsiisay 17 18 19 20 22 sano ay soo gaarsiisay in lagaga nixiyo canugaagii oo meeydaha jidka yaala ama moolka hor yaala cadaalad ma aha waxaan rabnaa marka maanta inaan ka hadalno maxaa sababay dhallinyaradan waa u jeednaa inay baaba'ayaan programkan maanta waxaan u sameynay ma ahan inaan maxaa la dhahay magac ku raadsano ma ahan organization inaan u sameynayno ma ahan maxaa la dhahay inaan qof iska gadayno ani magacayga Boostay Jaamaca la dhahaa Pakistan ku soo koray anoo waxaa imaaday teenager inta alxamdulillah hooyo ahay 3 wiil iyo 1 gabar aan leeyahay waxaan rabaa marka inaan inii sheego muhiimka community-geena inay isku imaato inay tahay muhiim sida ciyaalkeena u badbaadsana maxaa yeelay kayga haduu fiyo yahay kaaga uu xun yahay kayga biri ma fiicnaanayo jidkaas uu raacaya marka waxaan rabaa inaan inii sheego programkan hooyooyin dhalinyaro iyo hooyooyin badan oo Minnesota meel kasta ay ka imaadeenba ba isku soo dabarugay inay ka hadlaan dhibaatada ciyaalkeena haysata inaan ciyaalkeena badbaadin karno community haddii isku imaato oo wax wada qabsano wax badan aan badbaadin karnaa maxaa la dhahay wax badan oo waxaan arkay maxaa la dhahay far aan isku fiiqno the reason why ciyaalkeena badanka meesha u taagan yihiin run hadda inii sheego maxaa yeelay hooyo ku mashquulsanta aabba ku mashquulsan yahay masaajid ku mashquulsan yahay community leader ku mashquulsan yahay that's why ciyaalkeena banaanada u taagan yihiin that's why we losing our kids out there maxaa yeelay we forget them waqti ina galino ina ayaka ka warqabno war how can we save maxaa la dhahay our youth laba hooyo inay tashtaan ay dhahaan saacunikaaga u badbaadiya saacunimaheena u badbaadina maanta adduunka wax ka fiican ma jirto let's not yanis ambareen let's point fingers at each other let's help each other hooyo hadii dhiban tahay caawi ha ku sheekaysanin maamooyinka ayamahan kuwa naga waaween ani am a young mother but kuwa waaweyn 24/7 Snapchat iska cayniyaan where's their kids maxaa naga qaaday xishoodkii dadnimadii aan lahayn as a Somali I feel like what has done way baaba'ayaan I'm worried for my daughter 13 years old maxaa yeelay she's gone 24/7 waxay ku jiraan social media they see everything we are the role models and if we don't change anaka haddaan iska bilaabin then don't expect in ay isbedelaan muslim waan nahay laakiin dhaqanka America waaye idinka dhaqankiina wuu kala duwan yahay sidii ina oo la dhaqantiin waaye dad American ku dhashtay ilmahan wadan gooni ayaan joognaa taas waa ina ogaatiin waalidiintiina qalad ma leeyihiin ilmahana qalad ma laha ma is afahmaysiin problemka waa taas waxaan rabaa oo kale inaan idin sheego wax walba waxay ka bilaabataa alla ka cabsi badanaa waalidiinteena ilmaheena maanta dhan waxaan dhahaynaa waxa sameey tuko waxa laga yaabaa waalidiin ayaga tukaneen oo ilmahooda tufsineen oo hortooda ku tukanayna laga yaabaa inay jirto waa ina kulligeen isoo wada tukanna oo isbarnaa oo ilaahay tala saarnaa oo ilmaheena caawinna oo u duceynaa intaan inkaari lahayn maalin kasta waxa jira waalidiin dhahayaan bax hor u bax meeshaas kaliiniga isku dhimo waxaas ku sameey inta sad dhiilan ilmaheena waa ina kulligeen isku imaana oo u duceynaa masaajidada uga duceynaa oo fundraising u sameeynaa ilmaheena oo programyaal oo waxa jira oo na caawin kara anaga programyaashaas waa ina ilmaheena kaxeena oo geena oo ana ceeb ka cabsanin ceeb waahina haysataa already kulligeena ceeb wayna haysataa ilmaheena hortooda ku dhimanayna mana caawin karno taas ayaa ceeb kulligiin isku imaado Soomaalidiin inta iska hadli lahaydeen waxa laga yaabaa adoo cunug kale ka hadlaysa cunugaaga kuri ku joogo wax walba inuu sameeyo laakiin ma ka warqabtid taas ayaa laga yaabaa ilmaha dadka caayinina oo ilmihiina ku soo noqda oo iska wada hadla oo idinka is caawiyo isku wada imaado Soomaalideena kulligeena muslimiin aan nahay walaalo waa nahay dhaqankeena isku dhaqan waay soo kulligiin isku imaado oo is caawiyo
taas ayaa rabaa inaan idin sheego waa ku mahadsantihiin allah iyo ogolaatay inaan fikradeeda idin sheego السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وأمهد علينا يا ماموينك ما أنت كسوق بقلي إن أرنتان نقلا سوق بقلي مروينك مرت شرفتا أبيالك جوجا دمانتوت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك لك الحمد لله نعمة الإسلام أولا إلهي سبحانه وتعالى أمهد علينا إسلامنا نقدر هل كان يسوق كيني بعدما مهد هدنا هل بيئد نقدر أو سوماليات هل لقد كهد ليس ما شاء الله إن ما أنت مهم كان يسكوني مد أمارين كان يسكوني مد وحويان عيال كني أو قدك كبحي أو سسود دبجي تميسي أرنتان مدبدا عن كسيحني هدانا هاي كومونيتي هدانا هاي أقوانيهن كني هدايهن علوماديني هدايهن انتي وحنو برتي دمان لغا ودا سيحدي hooyooyinkii aqalladii ayay ku ooynayaan hooyo kasta meel ayay ku ooynaysaa kaligeedayna taagan tahay cid u soo baxdana ma lahan u soo jiiqdana ma lahan laakiin maanta we want together as a community as a one person rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka bini'aadanka ah islaamku waa hal jasad qof hadduu xanuunsado qofka kalena waa inuu la xanuunsadaa buu yidhi laakiin arrintaas waxaad u malaysaa in aan ilownay واتاي ان بوستيو maxay tahay sababta maanta halkan waalidiinta iyo dadkan Soomaalida isugu yimaadeen sababta abu waxa waaye laba habeen aamin last isbuuc waxa dhacay 3-7 ciyaal oo Soomaaliya ba overdose cuneen ay overdose noqdeen kiniiniyaasha waxay cuneen drugska laba of them way ku dhimatay marka wixiina way sii bateen ciyaal badan la arkaa maalin kasta isbitaalka la geeyo oo overdose noqdaan marka sababtaas aanu isku kaay keentay inaan dadkan iskugu yeerna aan ka hadalna dhibaatadan haysata arintan arin ku cusub miyaa dhalinyarada drugs isticmaalaysa mise waa wax soo socday in muddo ah wax nagu cusub maaha wax muddo soo socday waa laakiin hadda wixii way nagu bateen saaid bay noogu wateen hal habeen 7 ciyaal oo hal mar overdose noqday hadda kormayna dhicin maana maqlina soo wax saaid bi wixii u soo badanayaan waxaas saaid u soo cusbaanaysan halka ay ka imaanayaan iyo waxa halka uu yahay wali ma isla garateen community-ga halka abo hadda waa la wada imaaday waa la wada shiray qof kastaba wuxuu aqoon u leeyahay ka hadlay hadda waxa sameeynayna circle waxa la dhaho oo wareeg ah oo halka sidaan ku gaari lahayn inteena meesha iskugu imaatay inaan ka hadalno halku muxuu yahay marka sidaad u maleynaysaa adiga halka wuxuu yahay runna hadda ku sheego waa in community-gan horta isla shaqeeyna accept gareena horta problemkan inuu jiro waa inuu qof kastaba qaataa khaladka inuu wax ka leeyahay ciyaalkan meelaha taagtaaga ciyaalka overdose noqonaya haddii masaajid noqoto haddii community noqoto haddii noqoto maxaa la dhahay organizationada macallimiinta tugsiinta hooyooyinka aabooyinka kulli khaladka kulliga waa inaan accept gareena haddaan rabno inaan su'aal aan gaarno solution arintan ma arin Soomaalida kaliya ku egbaa mise waxaa jira dad kale oo soo galootiyo sida dad ka soo jeeda geeska Afrika oo kale Ethiopia Sudan ma jiraan wadamo kale arintan la wadaago dhalinyarada sidan tahay way jiraan laakiin anaka u badan Somali community aad ugu badan Somali community aad u maqalna marka dadka kale anaka xoog ma saarna laakiin waxa ognahay community-geena Soomaalideena dhalinyaradeena inay saaid ugu badan yihiin marka hadii dhalinyarada ay dragon isticmaalayaan dragon halka ka imaanaya ma ogaateen meeshu ka imaada lama yaqaan dawladda waa la fariisana ma yaqaan meeshu ka imaanay waxay dhaheen wax kuwa waxa waa kiniiniyaal isku dardaro oo jidadka lagu gado intii ay joognay goobtii ay isugu yimaadeen waalidiintii dibadbaxay maanta ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda oo iyagu waxay leeyihiin xarun lagu dhaqo caruurta isticmaasha drugska waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ay ugu talagaleen dhibaatadan jaaliyadda soo fosaartay iyaga oo magacooda markii hore ku bilaabay ayay Somali TV waxa uga warrameen sida tan magacaaga السلام عليكم إذا لا ليدها aniga السلام عليكم أنا magacayga waxaa Susan waa tahay idil waxaad leedihiin xaruntan lagu dhaqo dadka isticmaala drugga xaruntan ilaa imisa ay furantaa horta walaal xaruntan waxaa la furay June 26 oo this year ah hadda ayaa laysan ka qaadanay waxaan deganahay in Burnsville Minnesota Burnsville ku taala magaalada meesheena waa substance abuse oo drugs aad ku waxaan leenahay ku daawooyinka kiniiniyada lagu dhaqo nurse joogo rehab place waa outpatient rehab waa meesheena marka waa ka waa tahay maxaa ugu talagasheen jaaliyadda waad aragtaan dhibaato ay soo foosaan youth ma aha waa over 18 and up waa dadka ugu talagalnay waa dadka xanuuniyada daawada drugs addiction-ka
qamrada ha noqoto adar kiniinyaal ha noqdo cirbada ha noqdaan waxyaalahaas oo ugu talagalnay anaga waa tahay waad aragtaa jaaliyaddii Soomaaliyeed waxaa soo food saaray dhibaato dhinaca dhalinyarada ah dhalinyaro marka lagu leeyahay waxay ka bilowdaan ilaa iyo 17 ilaa up to 25 maantay waalidiin badan baa halka isugu soo baxday idinka maadaama xaruntan ay tahay xarun aad idinku maamushaada Soomaaliland maxaa ugu talagasheen annaga waxaa ugu talagalnay inaan waalidayaasha caawino kow labana waxaa ugu talagalnay inaan wiilasheena dhalinyarada inaan caawino ani wiilal badan ay la dhashay laftigayga waalid baan ahay gabdhihii riis baa haystaa marka hooyo xanuun kasta waa dareemayaa maantana walaalahayga inay rafaadkaas iyo dhibaatadaas inay galaan ma jecli marka anyway aan walaalahayga ka caawin karo ama hooyo kasta ka caawin karo ama wiil kasta oo waxaas ku rafaadayo waa la joognaa abayse dhahda nurses baa haysanaa professional staff baa haysanaa dad oo muddo sano waxaan oo soo mar waa haysanaa annagana waa joognaa experience ku leena aniga kaaniga 5 years u shaqeynayay marka I'm here to provide my experience I'm here to provide walaaltimadeeda and marka insha Allah that's our mission that's our goal and Abrian la dhaha Burnsville hadda laga furay abay dhahda Juna la furay marka insha Allah if you have dad hadda taqaaniin caafimaadka u baahan we're always here to help waa tahay marka la leeyahay dad baa laga dhaqayaa drugs ama la caawinaya jaaliyadda kulliba dad badan baa hadda waalidiin badan waxa jira carruurtooda ay drugs isticmaalaan meelay aadaan la fariinteena Somali TV u ramaysaan u marinaysaan xagee idin kala soo xiriiraya abo number aan leenahay Burnsville waa imeesheena waraaqdeena waa tan meeshatan laga soo wacaya telefonka waa 952 406 8105 952 406 8105 waa tahay haddii uu jiro waalid hadda ilmihiisu ay isticmaalaan drugs isla markaana baqaya oo isla haddii aad xarumahan kala geysa ama dadkay ogaadaan dhib baa soo food saaray keeba u fiican inuu guriga ku haysto qarsado iyo inuu idin keeno aad ka caawisaan annaga inuu noo keeno fiicnaan lahayd waalidka waa la hadli lahayn waalidka information iyo resources waa siin lahayn aboo hadaayar wuxuu ka hadlayay Norvac oo ka hadlayay oo ciyaalka oo markay overdose sameeyaan laga caawiyo marka education baa la siin lahaa waalidka haddii waalidka ay jeclaadaan in wiilkooda guriga ugu joogana waa loo soo dir lahaa resources telehealth la sameyn lahaa maadaama COVID-19 hadda socdo face to face keena we're limiting it just to make sure dadka inay caafimaad ay leeyihiin waalidka waxa ka jeclaan in anagana la soo xiriiraan first and just to talk about what the issue is and to help them figure out the science first and yeah I guess that's waa tahay ugu dambeyn idil xaruntan markii qofka la idin keeno ma meel lagu haynayo qofka mise waa meel lagu dabiibayo inta uu joogo kadibna gurigiisa lagu celinayo waa meel lagu dabiibayo inta uu joogo gurigiisa lagu celinayo waa outpatient rehab aad iyo aad u mahadsantiin